waayahay wuxuu ku leeyahay salaam baan u dirayaa Saleebaan Cabdalle iyo dadkii saafida ahaa waa niman sareeya haddana saanad culus haysta Saleebaan Cabdalle safkii uu ku jiro lama saluugaan dheh basuukihiisu raha weeye iyo seefo xoog badan waayahay waxaan halkaan ka salaamayaa gabdhaha iyo wiilasha sharafta badan ee reer abtigay Saleebaan Cabdalle ee gobonnimo u dirirka gabigood wada ah ee Soomaaliya magaca fiican ku leh ee darisnimada ku wanaagsan ee ahdiga iyo ballanta ku wanaagsan ee Soomaalinimada iyo wadaniyada ku wanaagsan aad iyo aad ayaan u salaamayaa Saleebaan Cabdalle Saleebaan Cabdalle dalka Soomaaliya xorriyadiisa qayb weyn bay ka qaateen markii la yiraahdo Saleebaan Cabdalle aadan dabacad ninkii yaqaana halgamaagii weynaa ninkii ayadoo cid hadasho la waayay ka dulqaaday maaragtay Sool iyo Sanaag iyo goboladaas dulmigii ninkii ka dulqaaday buu ahaa aadan dabacad la dhihi jiray nin Saleebaan Cabdalle buu ahaa ninkii garanaya Saleebaan Cabdalle waa beesha kaliya ee takada ayadu ay leedahay gacanta ku hayso weeye Saleebaan Cabdalle ciyaar mad caana booraha gel muxuu inda kulka ka saawil dinawda iyo ceeldhanaane waa laba takadood oo gacanta ku hayaan beesha Saleebaan Cabdalle Saleebaan Cabdalle dhinacna qoriga garabka ugu jira dhinacna kitaabka maarta garabka ugu jira meel kastoo joogaanna ilaahay galladiisa iyo gumacay ku joogaan cidna uma garawsana ma aha niman dadka dulmiya Saleebaan Cabdalle niman darisnimada ku fiican ballanta ku fiican ahdigana ku wanaagsan weeye aniga dad badan baan ka aqaanaa Saleebaan Cabdalle oo aan xiriir la leeyahay oo saaxiib bannahay jabigood wada xaafidul quraan waaye arrimaha aadka aan la yaabay ka mid tahay ma sha Allah waa wada xaafidul quraan hadda intaan aqaano taasi waxay muujinaysaa Saleebaan Cabdalle inay yihiin dad ilaahay u dhow bartayna diinta islaamka yaqaanana aadaabta iyo dhaqanka suuban ee wanaagsan qof walbaaba qofka uu diinta islaamka ka aqoon og yahay ilaahay waa uga dhow yahay xaqiiqo weeye halkaan baan ka salaamayaa reer Cawad oo aad u garanayo Mahad Cabdalle Cawad mas'uulkii labaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa nin Saleebaan Cabdalle anoon idin kala qaadaynin wiil iyo gabar Saleebaan Cabdalle waxaan idin leeyahay sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato abtiyaal aad baan idin salaamayaa dad aad u dhiig badan oo aad u qaali ah oo maaragtay ballanka ku fiican oo ahdiga ku fiican oo darisnimada ku fiican oo dadka birimageydada aan leynin wixii soo aadana iska dhiciyo weeye Saleebaan Cabdalle aad baan idin salaamayaa hadda waxaan halgamaa ahaana ma dhalaan waliba gabdhaha Saleebaan Cabdalle ogow Cabdullaahi Yuusuf Axmed ma doqonnimaad ku maqli jirteen waa maya runta la sheegaa moogtaa aniga Cabdullaahi dadkii ka soo horjeedaan laakiin ninka ragga waa loo qiraa 14aad buu ahaa Cabdullaahi Yuusuf geesi ah Allah u naxariistay gabar Saleebaan Cabdalle dhashay xisaabta ku darso waa la raadiyaa gabdhaha Saleebaan Cabdalle saasa loo goobaa gabdhaha Saleebaan Cabdalle waa la goobaa maxaa loo goobaa ma taqaaniin gabar Saleebaan Cabdalle wiil doqona ma dhasho xaqiiqo waaye hadalkayga dib u raac adigu 10 nin oo halgamayaalaha miiska ku soo saaraya oo Saleebaan Cabdalle ay dhaleen bal Cabdullaahi Yuusuf qabso Cabdullaahi Yuusuf Axmed Cabdullaahi Yuusuf wax kale hal waxantay mafulinima lagu xama jiri yaa adeer xoog baan ku nimid cidna war la weydiin maayo ninkii yiri way aad baan idin salaamayaa sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato Saleebaan Cabdalle